kasalku waa cudur qaatil ah oo qofka طالب cilmiga baabi'inaya waxbarashadana ka mashquulinaya waxaan wax taraynin oo nafci u lahayn in badan ku mashquulay kasalka ama futuurka Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wuxuu sheegay ilaa 5 sababood inuu futuurku leeyahay asbaabaha keena qofka inuu daalo ama uu caajizo oo ka wahsado cilmigii iyo xifdigiisa iyo barashadiisa 5 sabab ayuu sheegay sababta koowaad waxa waaye buu yiri ضعف الهمة والعزيمة qofka ardayga in himadiisa iyo aziimadiisa iyo go'aanadiisa uu ضعف galo hadii go'aankaagu uu daciifo waxbarashadaaduna waa daciifaysa himadaadu haday tahay mid daciif oo liidata oo himo sareysa aadan lahayn markaad cilmiga dalbayso natiijadaadu waxbarashada daciif ay noqonaysaa tan koowaad marka waxa waaye uu yiri ضعف الهمة والعزيمة waxayna ku cileeyeen culimadu qofka طالب cilmiga mar walba cilmi u kordho waxa laga rabaa bay yiraahdeen inuu nashaad u kordho waxay ku tusaaleeyeen bacd ulama qof taajira oo ganacsada qofka ganacsadaha ee taajirka mar walba oo ribxiga iyo faa'iidada tijaarada uu ka helayo ay badato maxaa badanaya nashaadkiisa si badanaya niyada u dhismaysa wuxuu rabaa intuu hada faa'iiday in ka badan inuu faa'iideysto rabaa qofka طالب cilmiga waa sidaas oo kale waa faa'iido doon markuu cilmi u kordho wuxuu dareemayaa inuu faa'iido helay maxaa laga rabaa marka inuu ziyaado waa inuu nashaad u ziyaado meeshii marka laga rabay inuu nashaad u ziyaado hadii ضعف u ziyaado oo himadiisu ay daciifto oo go'aankiisu daciifo taasi waxa waaye waa waxa futuurka keenayo qofka inuu cilmiga ka daalo waxa keenaya go'aankiisa liita wayla haduu go'aan qawi lahaan laha aziimadiisu ay xoog badnaan lahayd mar walba cilmi u kordho nashaad u kordhi laha tan koowaad marka waxa waaye ضعف الهمة والعزيمة tan labaad wuxuu yiri anna shaytaana yu'ayyisu طالب العلم أن الشيطان يؤيس طالب العلم شيطانك وحو قوسنيا قفك أرضيا قوسو كرديا وحو كقوسنيا وحبرشدي وحو كل يهبو يري المدى بعيد وقت وافقيا والديريا ولا يمكن أن تدرك ما أدرك العلماء صورة قلقو معها وحي علماء هليلان أو يقارين إنا قارت شيطانك ساسو وشيكين يا قفك أرضيا وحو الربا إنو قوسيو مركو قوسنيا وحو كل يهي وقت والديريا انت صوصانو وهدا كدبا ميا كل حجي كتا waxbarasho waqti waafaqiya mid kale ma waxaad rajo ka qabtaa inaad caalim fulan gaartay caalim fulan inaad gaarto heerkooda harajaynin buu leeyahay ma gaari kartid la yumkinu an tudrika ma adraka al ulama suuragal ma ahan inaad gaarto waxay culimo gaareen haduu qofku marka aamino in heerka culimadu ay gaareen inuu san gaari karin haduu aamin waqtiga inuu dheer yahay niyadiisa ay ka dhaadhacdo maxaa meeshaas iimaanaya inuu daala iimaanaysa fayaksal wa yad'u talab saasu sheekh rahimahullah fayaksal kasala ku dhacay wa yad'u talaba طلبكنا وكتجيا وحبرشدي فروق قاضية وحبرشدي وحو فرح وقاضي درسي والشيطان كقاته درته درسي قاصة إن وقت جونا ديريه علومنا أن لجاري كريم وضعف الهمة علماء علمي الله مدلان توفيق الله كسكو إلهي وفجي سبحانه وتعالى وحسببها إن الدلالين صومة جدي اجتهاد السبب وهيدو حيجارين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا مجرن علم لا شيء وأصع عالم لا شيء قفل باهي أوركو هيدي وحو كصوب حيسو جاهلة مركا كدي وحو برتي فرتي قرالكي كدي وحو قال طلب العلم ضدك علماء أئمة مؤلفات كفرها بدن له أيغو جهالة دشان أيغو وحبا aqoonay dhasheen kadib cilmiga way barteen oo way ijtihaadeen ilaahayna waa waafajiyay subhanahu wa ta'ala adiga maxaa ku diidaya marka inaad dadaasho dalika fadlullah yu'tihi man yasha sida culimadaas ilaahay u siiyay alla waa awoodaa inuu adigana ku siiyo subhanahu wa ta'ala oo heerka ay gaareen uu ku gaarsiiyo maaha marka in darsiga shaytaanka aad qaadato suuragal maaha inaad culimada gaarto waqtigu waa dheer yahay zamanku waa fog yahay wixii lamida wuxuu yiri sheekhu rahimahullah dhakara ahad al-mu'arrikhin an ahadi a'immati an-nahw mu'arrikhinta culimada taariikhda mid kamid ah wuxuu sheegay an ahadi a'immati an-nahw a'immada an-nahwada mid kamid ah ayuu wuxuu ka sheegay wa adunnuhu waxaan u maleynaya al-Kasaa'i Kasaa'i inuu yahay u maleynaya ee wax laga soo naqlinayo inuu Kasaa'i yahay ayaan u maleynaya waxa laga sheegay annahu hamma bi talab al-ilmi Kasaa'i wuxuu tamcay buu yiri inuu cilmiga dalbo walakinahu sa'uba alayhi laakin cilmigi waa ku adkaada gaar ahaan nahwuhu asiga aad u baran jiray nahwihi waa ku cuslaat fahamma an yada'a wuxuu damcay inuu iskaga tago cilmi mar haduu ku adkaaday wuxuu sirama iska dhaafta ma barakartide ama iska daysa gabi ahaanba faraa namlatan tahmilu ta'aman Kasaa'i asigoo isla wax barashadii iska dhaaf ayuu wuxuu arkay quraanyo cunno wada xabad raashin ay wada tahmilu ta'aman ma'aha cunno ximbaarsan tahay turiidu an tas'ada jidaran waxay rabtaa quraanyadaasi inay darbi karto ayadoo halkii
raashinka ama cunadii wadata ay waxay rabtaa inay darbi la korto fakullama sa'idat saqatat mar walba ay damacdo inay korto waa soo dhacdaa way koraysaa haddana way soo dhacaysaa ilaa 10 maraat ilaa 10 jeer ayay marna koraysay marna soo dhacaysa ayadoon gaarin meesha u socod kasaa'i waa fiirsanaya mar wuxuu u jeedaa quraanyadaas marna koraysa marna soo dhacaysa sabarkeedu la yaaban yahay faqaala wuxuu yiri hadhihi an-namla tukabidu wa takdah quraanyadaani way daalaysaa oo way ku rafaadaysaa buu yiri kull hadhihi al-marrat mararkaan oo dhan waxay ku dadaalaysaa oo ay ku daalaysaa inay korto hatta adrakat ilaa ay haleeshay si u koraysa u soo dhacaysa markii dambe waa kortay sidii ku tagtay ayadoo cunadeedina wadato marka wuxuu yiri quraanyadaani si u daalaysa u rafaadaysa waa gaartay yoolkeedii iyo meeshay u socotay idan la afcalanna anuguba hadda sidaas aan sameeynaya haddii quraanya sidaas sameeysa ma quraanya ka aqli liitaawi anna sidaas aan sameeynaya say u dadaashan u dadaalaya fajadda fi talab al-ilmi ayuu ku dadaalay hatta adraka al-imamata fihi ila au gaaray al-imama fi talab wa taqana al-Kisaa'i rahimahullah wa imam al-Kufiyin fi an-nahw reer Kufa nuhada basriyin ya Kufiyin baa loo qeybiyaa Soomaha reer Kufa imaamkooda ugu sareeyo xagga nahwada Kisaa'i buu ahaa ee la munaadaroon jiray Siibawayh siga Siibawayh munaadaraad doodo badan aan dhexmaray oo masaa'isha qaar ay ku doodeen nahwaha ku saabsan heerkaas oo markii dambe gaaray waa ninkii marka hore nahwaha dhibtay isiira ama iskaga tagtaa oo iska dhaaftaa talabul ilmi laakiin Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu tusaaleeyo wax ku garasiiyay quraanyadaas Ilaahi tusiiyay waxa la mid ahaa imaamkii inta ka niyad jabay talabul ilmiga soo maray ceel biyo laga shubayo ee xarig lagu jiidayo dhagax xariga uu jaraa dhagax wuxuu arkay dhagaxii oo dilaacsan markaasuu isiri xarigan sidoo u dilaaciyo dhagaxa ilaa xariga waa jilcan yahay dhagaxuna waa adag yahay sidee xariga uu jeexay dhagax sababtu maxay tahay ay ku dhacday waa bitakraar waa ku celcelin waa idan wuxuu yiri aniga fahamkaygu ma wuxuu ka adag yahay dhagaxaas kama fahmi aad sida darteed wuxuu yiri waa inaan cilmiga ku celceliyo si uu markii dambe ii galo wuxuu u noqdo waxbarashadii dib ugu laabto marka hore waa ka soo tagay dib ugu noqday markii dambe wuxuu ka mid noqday imaam min a'immati al-muslimiin marka ulul himma waa waxa cilmiga lagu gaaro shaytaanku markii uusan kugu sheekaynin meel hebla ma gaari kartid iyo hebel oo kala ma noqon kartid culimada laftirkoodu isku fahmiyay ahaay isku faham ma ahayn qaar cilmigu ku adkaa laakiin maxay uga gudbeen adeegaasi ijtihaad iyo dadaal fara badan ay bixiyeen iyo celcelin fara badan ay ku celceliyeen ay markii dambe Ilaahay heer ku gaarsiiyay subhanahu wa ta'ala ayadoo mar walba aysan meesha ka marnayn dadaal kaliya wax ma taro mar walba meesha waa inaysan ka marnaanin ikhlaas iyo taqwa Allah azza wa jal iyo Ilaahay ducadiisa baryada Ilaahay ina mar walba Ilaahay barido in Ilaahay ku waafajiyo oo ilaa haduu Ilaahay ku kaalmayno waxa ma gaari karo arinta saddexaad waxa waaye buu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah arinta saddexaad oo sababaysa al-futur qofka inuu cilmiga ka daalo inuu caajizo inuu ka wahsado arinta saddexaad ee sababaysa waxa waaye musaahabatul ashqiya in lala saaxiibo kuwa guul darrada ku dhacday dadka liita in lala saaxiibo dadka ku hungoobay inay heer gaaraan ama ay wax bartaan in lala saaxiibo kuwaas waa kula haraya kuwaas hadda la saaxiibto la shaka futur iyo daala kugu dhacaya saaxiibka haduu yahay midaan wax barashada ku fiicnayn ama ba kulli cibaadada iyo diinka ku dhaqankiisa asoo kala noqonaysa marka musaahabatul ashqiya waa sabab min asbab al-futur sababta afaraad ee futurka iyo daalka keenta wuxuu yiri at-talahi anhu bil mughriyat at-talahi anhu ilmiga in laga mashquulo oo looga mashquulo bil mughriyat waxyaabaha dadka kadiya waxyaabaha dhalaalka adduunka raaxada adduunyada iyo waxyaabaha alcaabta iyo ciyaaraha iyo waxyaabihi la midka in looga mashquulo wa idaa'ati al-waqti iyo waqtiga oo la dayaco in cilmiga looga mashquulo maratan yakhruju yatamasha sheeqatu saalaynay arinta afaraad waxa waaye buu yiri in cilmiga looga mashquulo mughriyaadka waxyaabaha qofka kadinaya iyo waqtiga oo la dayaco tusaalow keeno wuxuu yiri maratan yakhruju yatamasha qofkaasi futurka ku dhacay mararka qaar wuxuu yiri waa baxaya asoo meelaha iska socsoconay waxdana male waqtigu dayacaya kaliya wa ba'du an-nasi dadka qaarna yakunu maftunan bi mushahadati al'aab al-qura waxa waaye buu yiri mid ku fidnaysan inuu daawado banooniga iyo ciyaaraha banooniga inuu daawado wuxuu ku fidnaysan yahay ciyaaro inuu daawado waa maftuun waa fidnaysan yahay ciyaarahaas ku fidnaysan yahay waa waxyaabaha futurka keeno way mobile oo qaadana dhagaho gashanaya ama go'aya bustaho la hoosgalaya ama luuqa wala galaya maxuu dhageysanaya koox la leeyahay waa ciyaareen koox fulana raysay koox fulana rays maxaa faa'iidaha kugu jira banooni inta la qaado meel lagu riday natiijadu in meel lagu rido Sooma adiga faa'iida ka hesha maxay tahay isweydii nin aan la ordayo meel ku riday maxaa faa'iida waxa ka faa'iida ma jiraan wax aad ka faa'iideysa ma la fi dunya wala fi al-aakhir ha ku mashquulin mar kitaabka Ilaahay soo qaado akhriso waad ogtiin kitaabka Ilaahay waxa faa'iido ku jira oo qofka akhriyahay ajar uu ka helayo fara badan cilmi iyo ajar fara badan iyo cibaado inta waa u yahay laakiin waxa aqli darro ah in wixii ku anfici lahaa aad ka
mashquusho waxa aan ku anfacayna aad ku mashquul waxa kale sheekhu hadda tusaalaha koowaad ku sheegay waxa way dadka iska socda oo socodka waqtigooda ku lumiyay meelaha warwareegaya arintaasi waa sababta afaraad ee daalka keenta sababta afaraad ee daalka keenta waa in lagu mashquulo waxyaabo muqriyaada oo ku kadinaya oo naftu ay jecesha wa min al muqriyat fi hada zaman waxa kamida internetka kamida waxyaabaha aad u fasahaadiyay dad badan waqtiga ka lumiyay dayacay internetka qayb weyn uu ku leeyahay maanta wuxuu ku jiraa khad internet ama qof oo la hadlaya ama wax alla wixii u soo baxo iska fiirsanaya waa ku mashquulsan yahay qofkaas waqti ma u haray waqti u hari maayo wax ku barto ama wax ku faa'iido waa muqriyaadku sheegu sheegayo in cilmiga looga mashquulo muqriyaadka wuxuu keenayaa kasal iyo futuur iyo daal fara badan ayuu qofku u sababaya iska ilaaliya jazaakumullahu khayran ina ku mashquushaan internet arinta shanaad ee kamida waxyaabaha futuurka keena wuxuu yiri sheekhu rahimahullah anna al-insana la yash'uru bi annahu hala talabihi lil ilmi xaalatan waa dareen la'aan waa anna al-insana la yash'uru qofka wuxuu yiri ma dareemayo qofka ardayga ma dareensana bi annahu hala talabihi lil ilmi xaaladii waxbarashada inuu ku dhex jiro ku sugan yahay isma oga la yash'uru ma oga buu yiri bi annahu hala talabihi lil ilmi xaalada oo cilmiga dalbayo inuu yahay kal mujahid fi sabilillah ma dareensana markuu cilmiga baranayo inuu la mid yahay qof ku jihaadaya fi sabilillah bal ablagh bal waa ka xil dheer yahay buu yiri mid ku jihaadaya fi sabilillah waa ka fadli badan yahay midka ku jihaadaya fi sabilillah waxa ka fadli badan midka cilmiga dalbaya وسيعليان علماء وحي هذا قفك طالب العلم وهو حفظنا يا دين إلهي وهو كدفاعيا عن الشبهات والشكوك أيو كدفاعيا وأوغا النفع بنيه مركا إسلام كي مسلمين تا متك جهاد يكون جهاد في سبيل الله قفك مركا أرضيا مركو داليو أما أو عاجزيو وحا مسكح دي سيمان كيسا كمقا فلق أوليها طلب العلم مقر واقصنا منا دارين سنة اسمه أوغا إنو لم يديه قفك جهاد في سبيل الله بل إنو كحل ديريا اسمه أوغا عدوسا قفك أوغين مركا وحا وكل حجر فضلك إليهين وحا أسهلنانيس إنو دالو فطور أو قدعو لكن هدو دارين سيهي إنو فضل وين كل حسوغين عبادة أو كجر أيتها عبادة آدي آدو قيمة بضان طلب علم عبادة واي ويلبي عبادة آدو وين فضلك آدو آدو بدنيا هدو سيدا دارين سنا لها نشاد يفر فرعوني أيو كقادلها لكن إنو هالماما فضلقاسي وحي كينيسا إنو كسل يا فطور يدال أو لي ما ضغفك وكدال وحبر شدي شنتاسي الرماد نوال بود دال يا كسل كم موضع هاسكفيري نفترض الحساب دبو فيري شنتان ميقا كوهيستا شنتو ما كوهيستان ما بعض كميدا كوهيستا ما لبات كل هذا هاي ما سدحات كل هذا هاي نوال نفتي سديبها ومراجعي